Soo dhawaada saaxiibayaal, waxaynu doonaynaa maanta inaynu barano qaabka loo sameeyo dhisaanka. Marka koowaad waxaan soo furanaynaa cabirka dhisaanka, waxaan ka dhigaynaa 1080 resolution-kana 300. Marka labaad waxaan doonaynaa inaynu soo qaadano background-keeni oo gradient aynu ka dhigino. Gradient-kaas aan ka dhigaya midabka madow anigoo radial ka dhigaya style-ka. Intaa markaan sameeyo waxaan soo qaadanayaa kabti markaan halkaas soo dhigo waxaan doonayaa markaa inaan qoraalkii aan ku qoro. Text baan tegayaa, deetana qoraalkii baan ku qorayaa. Intaa markaan sameeyo qoraalkayga arc baan ka dhigayaa, waan yar janjeerinayaa style-kiisa. Deetana centerkan ku beegayaa. Qoraalkayga markaa labaan u kala qaadayaa, waan koobiyeynayaa. Mid stroke baan ka dhigayaa, waa filkan xidhayaa. Stroke midabka waxaan ka dhigayaa huruud. Filkan iska xidhayaa. Intaa markaan qabto kaygii stroke ahaa ayaan koobiyeynayaa markaa 3 jeer anoo control J taabanaya keyboardkayga, deetana arrow-ga keyboardkayga ka riixaya. Intaa markaan sameeyo 3 baan ka dhigayaa, deetana 3 waan isku xidhaya anigoo shift qabanaya, deetana smart object waan bedelaya, layer mask ka idhaahdo, deetana shadow waxa hoose ka geliyo ama inta hoose aan masaxo.